wax soo bandhigaya halgankayga mudooyinka dambe ku jiray way suugaan ku metelay umada Soomaaliyeed dhaliya eedaheediyo dhaliil kama dhamaato adduunyadu dhameys male waa dhaawac bogsoon oo wiligii la dhigi jiray dhan markaad ka keentaba waxa dhima dhankii kale dhalinyaro iyo waayeel dhamaan wax isma dhaamaan waxa gooni ku dhibana qof kastay ku dhacayaane murtiyaan dhamaanayna waa hobol dhambaalkiisi markii aan gudmoodoon xarfaha aragti dheereeyo wixii dheeriyo wixii ii dhow bandhabu ogada dhacda kale haddii aan soo galaan dhab uga faaleeyo dhibaatada shabaab geesiyada ugu boqol gaaray way dhaar ku soo maray inay dhab u xoreeyaan dhulka hooyadeena ducaan idinku dhaafaahe dhagta dhiig ha loo daro haddii dhaawac qabataan dhagar qabe intii oo bogsoon dunida dhaafsiya dooble iyo jubbada dhexe haddii gada ku dhuuntaanna dhabtii waxaad u sheegtaan inaan meelna lagu dhaafin salaadana dhammaystira jannaad dhabu helaysaane cali dheere dhaartiisa xuna way iska dhalanteed barbaartaan militeerka barqas soo qorato tababarka ku baastaay biri iyo badeenna bulshadeena badbaadsha booli qootiya tuugiyo burcad weeye shabaabna beenna maahan warkaygiyo diinteennan barakaysiyo baqara lagu sheegay bisimada quraanka iyo boqol baala kitaabka qawaarag baa laga baaro hal baal baa laga waayay baadilka aad aragteen oo dadka la iska bireeyo boqoloo wax barto farxad soo bandhigayo baxsati gabadhiina jaamacadii ku baastay beelkii hooyo aaba shaqadiisii bilowday haddii beerka la geeyo cadawgii baxsanaayo dadkeenina baqaan oo bosta la isku dadaayo la yacaas dadku boobay miyaan beesala ay bilaash aan ku helno sadaqo la baxna barxadii lagu sheego baxsigood ha yaraado badhaantooda iyo muuqa shiisha looga bilaabo wadnahoodu habboodo baalootada nubulaashigaysa beerkar aadi aniga dhammaan waxaan metelaa qof kastoo Soomaaliya shantii Soomaaliya waxaan jecelahay oo aan ku taamaa oo aan ku fikiraa in aan mar walba qadiyad Soomaali weyn iyo midnimo Soomaali weyn iyo wadajir Soomaali weyn iyo gobonnimo Soomaali weyn inaan ka shaqeeyo doonaan wacad ku maraya intaan noolay naftu ugu jirto waxaan ka codsanayaa ciidamada xoogga dalka ciidamada macawiisleyda meel kasto ay qof kasto Soomaaliya joogto in cadawga iska dulqaadno naf iyo maal wax kastaba aan isku geyno intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa